Waxay ku dhow yihiin xilligii ay dhalmada joojin lahaayeen, welina ma guursan, waxna ma dhalin. Atariishooyinkan 40-ka ku dhow waa wax aad u sahlan inaad Bollywood-ka ku aragto atariishooyin aad u soo jiidasho badan oo qurux loo dhameeyay, laakiin sida ay wax walba u qurxoon yihiin marka ay sameynayaan filim jacayl ah uma qurux badna noloshooda dhabta ah. Warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa 4 atariisho kuwaas oo aan guurka u arkin wax muhiim u ah nolosha, ku daahay iskaabulnimo. Atariishada koowaad waa Taboo, waa mid ka mid ah atariishooyinka ugu quruxda badan iyo soo jiidashada badan Bollywood-ka. Sidoo kale waxay awood ku leedahay inay doorar badan ku soo baxdo aflaamta, laakiin marka la joogo nolosha dhabta ah waa 47 sano jir. Taboo ayaan ilaa haatan guursan, inkastoo dhowr jeer lagu xantay jilayaal ay aflaamta la sameysay inay xiriir la leedahay. Atariishada labaad waa Sushmita Sen. Inay qurxoon tahay laba isweydiin mayso, waana gabar ku soo guulaystay abaalmarinta Mrs Universe, laakiin dhanka xiriirka jacayl ayay ku guuldareysatay. Laba gabdhood ay iyadu korsatay ayay la nooshahay, waana Reena Zeen iyo Aliza Zeen oo ay soo kala qaadatay 2000 iyo 2010 ayay soo kala qaadatay. Gabdhahaas 43 sano jirtaan ayaa dhowr jeer xiriir la sameysay atoorayaasha, laakiin weli waa iska. Atariishada saddexaad waa Amisha Patel oo ah 43 jirtaan. Amisha Patel xiriir muran ka dhashay ayay la yeelatay director Vikram Bhatt, marna xiriirkaas ma noqon mid guulaystay. Sidoo kale Amisha ayaa dhowr jeer lagu xantay inay xiriir la leedahay xiddiga ay aflaan la sameysay ama rag ganacsato ah, laakiin ilaa haatan waa iskaabulo. Atariishada kale waa Katrina Kaif, waa 36 jir. Rag dhowr ah xiriir la sameysay, waxayna ka mid tahay maanta atariishooyinka doomnimo ku duqoowayaan. Atariishada ugu dambeysa waa Kangana Ranaut, waa 32 jir. Inkastoo dhammaan dumarka sare ay ka yar tahay da' ahaan, haatan xiddigtan weli lama guursan, waxayna ku sii socotaa da'da 40 sano.